marka hore runtii waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa hay'adda Sonna madaxeeda iyo shaqaalaheedii dadaalada ay dadaalayaan ummadda Soomaaliyeed duruufaha adag horeyn ugu jirta iyo haddana mid cusub la soo sheegay sida dadaalka ay ku jiraan ay ummad u hayaan waa ugu mahadcelinayaa sidaas oo kale wasiirada maaragtay u aabilsan arrimaha maaragtay duruufaha maaleynta masiibooyinka wixii quseeyo iyo waxyaalaha maaragtay duruufaha hadda laga baqayo soo socda la sheegay saadalinta ay sheegayso ay u diyaar garoobeen dadaalkooda inay waa u mahadcelinayaa waxaan ogahay ummadda Soomaaliyeed inay duruufo adag ku jirtay horeyba ugu jirtay inkastoo sidii hore la dhaamo alxamdulillah markii laga fiiriyo dhinaca amniga dhinaca dawladnimada horumarada la gaarayo sidii hore aad u dhaamaan haddana maaragtay duruufihii raadkooda dalka aad weli baaqi ku yahay arrimahaas oo la islahaa marka waa laga baxaya dareenka cusub oo hadda soo kordhay wuxuu yahay arrinta saadalinta ay sheegayso deerta macnaha liinaha la leeyahay yani mid aad u xoog badan inuu yahay la sheegay kaas ummadda Soomaaliyeed walaa cusub ku soo kordhiyay taas aan leenahay in maaragtay loo diyaar garoobo marka hore dadka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan qof kasta intii karaankiisa in u diyaar garoobo la iska ilaaliyo meelaha biimareenka ah meel wabiyada iyo boholaha waaweyn yani togaga iyo maaragtay meel kasta daadadka ay marayaan in la iska ilaaliyo la iscaawiyo Soomaalida maaragtay yani wax istarkii oo iscaawinta ku fiican tahay qofkii uu ka tabaroon yahay inuu caawiyo horta koow anaga aan iska bilaawno dawladdeena Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada ay caawiyaan shacabka intii karaankooda ah kadibna maaragtay hay'adaha caalamka maaragtay deegaha ay wadamada deegaha iyo donoriskana inay Soomaaliya runtii waxyaalo badan la soo qabtay waan rahay wixii hore loo soo qabtay waan ka mahadcelinaynaa haddana duruufahan la sheegay si gaar ah waxaan codsanaynaa in Soomaaliya gaar loo yeesho maaragtay dhibaatada la dhaxgalay oo waxba laga gaari karin waxa ka fiican ka hor in la diyaar garoobo arrimahaas waan ka codsanaynaa in maaragtay gacan maaragtay xoogan ummadda Soomaaliyeed laga siiyo anaguna wixii karaanka anaga waa dadaalaynaa insha Allah taas waa sidaas dhinaca kale hay'adaha iyo hay'adda Sonna ay kulli waxaan rabaa inay si gaar ah u fiiriyaan meelaha barakacayaasha iyo shacabka badan isku dul fadhiyo si gaar ah in loo eego maaragtay taasna fiir gaar ah loo yeesho sida uu sheegay hogaamiyaha hay'adda koonfur galbeed inkastoo aan Soomaaliya dhan runtii duruufteed aan ka damqanayn u hadlaayo haddana khaasatan koonfur galbeed waa state ugu dadka badan ugu barakacayaasha badan hatta Muqdisho barakacayaasha joog inta ugu badan waxay ka yimaadeen koonfur galbeed marka ayagan waxaan taasna si gaar ah waxaan u codsanayaa in fiir gaar ah loo yeesho duruufo badan state-kaas ka jirta dhinaca amniga oo nimankii manaxyaasha ahaa dhalinyaradan la qalday duurka ku jirtana duurka ka soo cadaadiyaan oo dadkii magaalooyinka soo aadeen iyo magaalooyinkii markii la yimid oo duruufo adag ay ka jiraan iyo maaragtay aliinaha la sheegayo intaas haday isku darsamaan aad baan cabsi badan aan u qabnaa in maaragtay dhibaato iska imaan karto arrintaas waxaan codsanaynaa si gaar ah arrimahaas loo fiiriyo oo gacan gaar ah laga siiyo marka hay'adda Sonna waxaan leenahay dadaalka aad ummad u haysaan waad ku mahadsantihiin ku dadaala si dhameystir anu garabkiina taaganahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay dhibkan noo yasiro amna ilaahay nasiyo liinaha laga cabsi qabo ilaahay noo fududeeyo abaarta ilaahay naga bixiyo annaguna dad muwaafaqa isku duubno wada shaqaysta ilaahay naga dhigo taas ilaahay ka barinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh